dadka caasimadda ku nool waxaan rabaa inaan dhaho laba waxyaabood iskuma heli karno walaalayaal. tuugga inaan soo daba kacno badbaadsanno iyo wax la mid ah oo aan ciidamada amniga eedayno. booliisku wax ma qabto, ciidanka amniga wax ma qabtaan aan ku eedayno. iyo in marka mid sidaa samaynaya dariiqa taagnaay la soo qabto aan soo daba kacno oo odagii nabadoonka uu soo daba kaco oo xildhibaankii uu soo daba kaco oo hooyadii iyo aabbihii ay soo daba kacaan ayagoo ku dacwoonaya wiil fiican uu ahaa. asigaaba masaajidka yimid qaarkood ay ku leeyihiin qaarnama nin fiican oo jaamacad dhigto ahaa. waxay rabaanba oo lagu nasahayo oo lagu nadiifinayo ama dembiga looga qaadayo wiilka la sheego. waana wiilkii tooreydiya lagu hayaa, bastooladiya lagu hayaa oo wax ku dhacayay. waxaan rabnaa dadka magaalada muqdisho degan waxaan leenahay walaalayaal ciidamada amniga ha lala shaqeeyo. wiilka sida aad sheegaysa hadduu yahay waa la soo daynayaa. jaamacad hadduu dhigtana kaaruu wataa, aqoonsiga wataa oo jaamacad ku dhigto. hadduu wax kale shaqo fiican hayana cid badan oo xaafadda oo deegaanka u marqaati furto oo nin fiican oo ayaa la heli doonaa. waxbaa qof dembi ku caddaysaa la weyn doonaa. qofna dembiile maaha intii dembiga looga caddeeyo, laakiin fursaddaas dhiib inta qofkii dembiga looga caddaynayo ama looga waynayo oo qof nadiif oo muwaadin oo fiican waa laga dhahayo. ciidamada amnigaa soo haray dadaalkaas inta lagu jiraa khalad waa dhici karaa. ciidanka khalad waa ka dhici karaa. ciidanka lafsidiisa wiil Soomaaliyeed waaye wuu khaldami karaa. wiilkaan khaldamay kuwa la mida waa laga yaabaa inay ciidan ku jiraan. laakiin inta fiicanaa badan waxay u taagan yihiinaa badan. waa la dilaa, waa la xabadaynaa, waa la dilaa, waa dhimanaa askariga. askari fiicanaa dhimanaayo oo u dhimanaayo inaa adiga cawada gurigaaga aad nabad ku seexatid daraaddeed, jidka inaad nabad ku martid daraaddeed, adoo mobaylkaaga ku hadlaaya inaad waddada iska dhex martood socoto ayuu askarigaas u dhimanaa. haddaan aragno wuxuu mudan yahay askariga inaan u gargaarno laftiisa si uu shaqada uu hayo uu noogu hayo. intaas laakiin oo dhan waxaa isku sii fuuqsaday oo ugu sii dara soo dabakicidda la soo dabakacaayo tuugga. toorrida jidka la taagan, bistooladda jidka la taagan, taleefanka ka qaadanayo hooyada jidka maraysa ama aabbaha jidka maraayo. gabadha maxaan ku rahaa dukaanka rubaca sokortaa looga diray kun gashin wadata ka qaadanayo. dadka muqdisho waxaan leeyahay dib ha isugu noqdaan. dowladda waxaa ka go'an in amniga la sugaa ka go'an. waa saxeynaa, waa la daba socdaa, waa la toosinayaa, hadduu ciqaab mudan yahay waa la ciqaabayaa. askariga qaldan, sarkaalka qaldan waa la toosinaa, waa la daba socdaa. dhibkoodna wada haysto ma aha dhinaca amniga bes. khaladaad badan oo kaleo askariga naftiisa xataa khaladaad ku ah maalmo badan ka dhacaan waan ognahay, laakiin waa dabagelaynaa. howlgallay ku jiraan. maanta roobaa da'aya, iyadoo roob da'ayay dagaal ku jireen. jilib marka saaki howlgallo waaweynaa ka dhacay. nimanka nabadiidkaa lagu laayay. waddaday taagnaayeen, jeegboyntay taagnaayeen, ay dadka ku dhibaayeen. askariyaa khatartaas u qaatay. marka walaalayaal waa duruufo gaara waa ku sugannahay, waa run. wax kasta sida aan rabnay nooma aha, waa run. laakiin haddana intaas ka bacdi waxaan rabnaa inaan hore u soconnaan rabnaa, inaan hore u dhaqaaqnaan rabnaa. meesha aan joogno inaan wax ku sii darnoon wanaagga, fiicnaanta iyo samaha meesha inaga jiraan aan u sii dhowaano. nabadda iyo amniga iyo deganaanshaha iyo istiqraarka meesha ay jiraan inaan u sii dhowaanaan rabnaa, oon kusii siqno, kusii soconno. sida kaliya aan ku gaari karno meeshaasna waxa waaye wada shaqayn. inaan wada shaqayno, isu dul qaadanno, niyad san aan la nimaado. keenna shaqada haya ee niyadda san inaan ku taageerno. hadduu qaldaya xataa inaanu caqli celinno waanino dhaano saan maaha, laakiin waa dhimana, waa dhaawacma. askarigii uguma sii dari karna eedayn iyo cambaarayn iyo halka xunoo ku jira inaan ka dhex saarno waa habboon tahay. inaanu wacyi gelino wax u sheegno toosino waa habboon tahay, waana ku jirnaa. dadka muqdisho waxaan leeyahay walaalayaal aan isku noqonno, yaan la soo dabakicin tuug jidka taagnay.
توق قاطع الطريق وجدك كوتاغن ورهدان توقي دبكعنو وشبابك وقرابة عندهم وقفك نقول قبيلك أو نقول جفدا أو نقول باشا أو قرابة عن بنو أرجع خطر والخطر واي وحنا الدين وقوة قرابتنا لا كونا يقانو ماشي كنا ناي ماشي كوي ماشي وصعنا كوي أقوى قرابة نفي عن لغم النقضاء وقاذا ويلك الصح نقفوا قرابة اللي شباب كدور كجوجو ودلق أهو ومضى الصوماليين شن يتبصنا مرق كوها ياهي كل قرابة ذي النواي ضد نوحيان وانو قبيل أبتي إيدي أيينا sidoo kale midkan jidka la taagan tooreyda ibstoolada abtiye eeday aabana iyo hooyo annaga waa cirkana kama soo degan garsan laga soo maroojin waxa magaca ay leeyahay oo bixina tuug waa tuug wiilkaaga ma ah walaalkaaga ma ah eeday abtiye adeer waa tuug magacaas uu leeyahay magaca uu leeyahay aan siino aanan iska ilaalino aad iyo aad u maasantihiin